بسم الله الرحمن الرحيم ومر kale iyo barnaamijkeeni geesa badane ugu horeyn waxaan salaamayaa shacabka Soomaalida maadaama oo bisha Ramadaan ku jirnay sida darteed barnaamijkeena hoos waan isaga dhignay dhanka kalena wali cudurkii coronavirus-ku uu jiro taana ogeysiis baan ku sheegnay laakiin dadaalkeena waxaan ka wadnay dhinacyada kale ee mass media si iyagana aan bulshada u fahansiino awoodda mass media uu leeyahay maadaama dad fara badan ayna waxna qorin ba waxna akhriin oo ay ku xiran yihiin mass media sida darteed barnaamijyadii taxana ahaa ee caadiga ahaa bayaan iska bilaabanayna dib aan ku doonaynay samata bixinta deegaanka maanta waxaan ka hadlaynaa marka dhowr qodob baan ka hadlaynaa oo kala duwan oo aanu arkay waqtigan inay daruuri tahay intii la soo daayay kadib waxaan ka hadlaynaa xaaladda guud ee wadanka kadib ta deegaanka kadibna qodobo yar oo kale muhiim ah oo waqtigan la janqaadaya xaaladda guud ee Itoobiya haddaan ku bilowno haddaan yara dul marno xaaladda wadanku ku jiro kolley xaalad siyaasadeed oo iska guurguura waa lagu jiraa laakiin kolley waa iska saldhigi doontaa marka sida ay la tahay xaaladda guud hadda ajandaha dawladda federaalka hor yaala culayska ku haya waxa weeyaan waa sidii sharciga loo micnayn lahaa kadibna dawladda waqtiga lagu kordhin lahaa marka taana dadkii aqoon-yahanka ee sharciga yaqaanay ayaa faraha ku haya waxa la rajaynayaa waqti dhow inay soo dhameystiranto si guul ah oo maslaxadda ummadda iyo wadanku ku jiraan ay ku soo dhamaato kadibna baarlamaanka waxa la rajaynayaa in dawladda waqtiga u kordhiyaan marka waxay la tahay inta ka horeysa dawladda federaalka waxyaabo fara badan way isaga dulqaadan doontaa laakiin marka arrintaasi ay dhamaato waxa rajaynayaa in waxyaabo fara badan ay saxmi doonaan dhibaatooyin badan oo jira iyo wax la tabayana in waqtiga ay dawladda fursad u siinayso in talaabo ay ka qaado xaaladda deegaankeena haddaan dib ugu soo noqono oo ah tan ugu muhiimsan kolay maalmihii toddobaadkii hadda ugu dambeeyay waxyaabo fara badan baa dhacay wax la soo koobi kara maaha waxyaabaha dhacay dadka qaarkii inay ku cusbaataa laga yaabaa laakiin dad badan kuma cusba waa wixii aan ka hadlayna markhaatigeedii dhibaatooyinka hadda deegaanka ka jira wax la soo koobi kara maaha gaar ahaan maalinta ka dambaysa waxaad moodaa in dhibaato la sii muquuranayo dhacdadii hadda ugu dambaysay ee foosha xumayd ee baarlamaanka lagu sameeyey waxay markhaati u tahay sida deegaankeenna uu sharciga uga fog yahay waxay markhaati u tahay sida deegaankeenna inagu waxaan moodaynaa inaan ismaamulno laakiin meel kale looga taliyo fariimo la soo gudbiyey iyo telefoonno rag ay soo direen aynaan isku dan ahayn ayaa deegaankeenna lagu maamulaa kuwa ayaa sharci ka ah arrinta baarlamaanku waa hay'adda sharciga ugu sarreysay baarlamaanka gebigiisaba 3 qodob baa xakameeya qodob afraad oo baarlamaanka xakameeya ma jiro baarlamaanka waxay u hoggaansan yihiin kow waa sharciga weeyaan 2 rabitaanka shacabka soo doortay 3 damiirkooda markaan leenahay waxa laga hadlayaa ummad walba waxay leedahay dhaqan iyo diin waxa jira anshax wixii anshaxa iyo nidaamka iyo diinta iyo dhaqanka damiirkooda uu siiyo ee wanaagsanna way u hoggaansan yihiin baarlamaankii noocaas ahaa waad aragtaan waxa ku dhacay in suuqa dhexdiisa lagu tuntay waxyaabaha la yaab kale waxa ka mid ah khamiistii markuu shirku furmay ajandii xukuumaddu soo dhaweysatay baarlamaanku uu xaq u leeyahay inuu ajanda ku daro ajandii waqtiga kumayna jirin in xasaanada laga qaado baarlamaanka qaar dhibaato kuma jirin baarlamaanku kale waxay codsadeen in ajanda lagu daro xaqna way u leeyihiin waxay codsadeen arrinta ugu muhiimsan ee shaqada baarlamaanku ay tahay oo ah in dawladda ay la xisaabtamaan oo ay daba galaan sharciga inay saxaan ajandii marka codsadeen waxyaabaha la yaab kale ee waqtiyadii hore xitaa dhicin waxa ka mid ah marka dad xasaanada laga qaadayo baarlamaana nidaamka loo marayo wuxuu ahaa nidaam formal oo kale iyadoo baarlamaanka lagu socdo laga yaabo in siyaasad ahaan loogu socdo laakiin haddana nidaam baa loo sameynayay waa la sii maqlayay fulaxantii ma mooga baa jirtay cadaaladda loo gudbinayay dembiya loo sii sameynayay laakiin markii baarlamaanku shirkii uu furmay ay ajandahoodii codsadeen ajandihiina loo codeeyey oo ay ku guuleysteen baa dhibaato la bilaabon isla halkii
unbay ka bilaabatay in xasaanada laga qaado haddaba su-aashu waxa weeye yaa xasaanada ka qaaday yaa socodeyey baarlamaanka waxaa soo xaadirtay aniga wararku way dhaafeen laakiin dib baan u dhageystay 182 yaa soo xaadirtay bay yidhaahdeen baarlamaanku waxay codsadeen waxay sheegteen inay 100 ku soo baxeen haddii markaa ta baarlamaanka aynu halkaa iska dhigno afka dawladda haddaynu raacno shirkii la qabtay xasaanad ka qaadidda iyo guud ahaanba nidaamkii loo socday inuu sharci darro ahaa ayaad afka dawladda keliya taan ka markhaati furi karnaa halkaas si fiican loo dhageysto dawladdu waxay sheegtay in 182 xubnood ay ka soo qayb galeen shirka markii hore kadib inay ka soo baxeen shirka 37 taasoo noqonaysa inuu soo haray 45 waayahay 182 saddex meelood oo laba shirku markaa muxuu ku qabsoomayaa 158 iyo wixii ka badan buu ku qabsoomayaa waa haddii sida ay sheegtaan aan u raacno baarlamaanku 100 bay sheegteen iska badaa konton ka tuura 182 konton markay ka baxday waa shirka yaa xasaanada kuwan ka qaaday ila shirkii markuu furmay ajandii waa la isku diiday baarlamaanka uu soo baxay shirka yaa sii waday markaa ma kabinegii magacaabidda dadka ahaa ee aan baarlamaanka ku jirin baa gacanta taagay waa arrin la yaab leh arrinta baarlamaanku markaa baarlamaankii noocaas ahaa ayaa loo diiday inay ka baxaan guriga ciidan la hor istaajiyey kadib markay damceen media inay la hadlaan iyagoo si nabadgelyo ah xafiiskoodii hor tagay oo raba inay shir jireed qabsadaan baa la soo weeraray suuqa dhexdiisa lagu tuntay yaa ku tumanaya askarigii booliska ahaa ee bayaanka askariga uu ku yahay uu qoriga ku wado baarlamaankii ansixiyey askarigii loo ansixiyey ee iyagu ansixiyeen baa garaacaya halka maxaad ka garan karaa markaa deegaanku markaa inuu gacanta u galay koox hadda legitimate government marka la leeyahay dawlad sharci ah hadda lama odhan karo dawlad sharciya jirta kow baarlamaanku gacanta ay u taageenba laba taa baarlamaanka halka iska dhigba dawladda baarlamaankii xukumay ee ansixiyey ee la xisaabtamayay dawladda iyo baarlamaanka yaa sareeya baarlamaanka yaa xukuma dawladda yaa ansixiyey sharcinimada madaxweynuhu uu ku joogo xukuumaddan ku dhisan tahay yaa ansixiyey kuwii noocaasa marka suuqa lagu garaacay ee ciidanku ku garaacay ee la xidhxidhay sharcigu muxuu yahay markaa jira waxaa soo afjarantay markaa hadda dadka qaar baa laga yaabaa dadkeennu waad ku wareeri dawladda hadday dhiig faraha la gasho ay dad xidhxidho inay guulaysatay bay u arkaan mayna guulaysanin dawladdu way guul daraysatay waxa guulaystay kuwa sharciga ku taagan waxa mahad leh baarlamaanka iyagoo sharciga ilaalinaya loo dhibaateeyey ee dhiigga u daadiyey waxa sharaf leh baarlamaanka damcay in haybadii iyo haykalkii dawladnimada iyo sharciga iyagoo soo celinaya dhibaatadu u gaadhay waxa sharaf leh baarlamaanka diiday in wada luqluuqa iyo afbuuxis iyo waxyaabo kale inta loo maro lagu kasbado ee ka doorbiday damiirkooda sharciga u hoggaansamay kuwaas ayaa guulaystay laakiin qoriga afkiisa qabaalka qoriga saaran iyo askariga afkiisu ma guulaysan kuwaas way guul daraysteen dhiig ayay faraha la galeen dawlad mar haddii dhiig ay faraha la gashana oo shaarkii caddaa uu casir isu bedelana meesha dawlad sharci ma taalo mana sii jiri doonto sidaa darteed baarlamaanka arrintiisa waxaa loo baahan yahay shacabka Soomaalidu in ay ka hadlaan 12 ba xasaanada laga qaaday baa leeyahay oo sharci darro xasaanada laga ma qaadin goorma laga qaadi karaa war ma shirkii ajandaha ay ku codsadeen baa laga qaadi karaa marka waxay ka dhigan tahay wixii jeebada madaxweynaha ku jira kolba sidoo doono hadda ka hor waan sheegnay awoodda ugu sarreysa ee sharciga ah waa rabitaanka kursiga madow taana hadda ka hor baan ka sheegnay tanana marxaati waa hadda marka waxaan aad ugu faraxsanahay in dadka intii aan wax saluugsanayn intii in wax fiican yahay u arkaysay intii dhexdhexaadka ahayd dhammaan maanta in isku si loo wada galgalanayo oo habeenkii la seexan la yahay oo isku si loo taahayo oo arrintii la soo taabtay baarlamaanka xasaanada laga qaaday leeyahay 12ka waa sharci darro insha Allah ta'ala kuwa la xasaanadaanu ka qaadnay ayay hor keeni doonaan sharciga waayo waa qeyr sharci sida darteed waxa loo baahan yahay shan baa hadda xidhan shacabka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay kuwa xidhan in la moral geliyo xaafadahoodii reerahoodii in la booqdo wixii dhaqaale lagu tari karo waayo xarig baan soo maray
waxaad ugu jeclaanaysaa marka lagu soo daayo reerkaaga ninka soo booqday ay yidhaahdaan hebel baa noo yimid oo nagu yidhi ayzo ereyga ayzo ya ciyaar ma aha in inta lagu yimaado lagu moraal geliyo oo lagu yidhaahdo dhib ma jiro waa arrin muhiima sidaa darteed baarlamaanka waa in xaafadoodii la moraal geliyo iyaguna waa inay u samraan dadaalkoodana waa inay sii wadaan guushna waxay noqon doontaa tan dambe ee raacda sharciga marka qodobka baarlamaanka halkaasaan ku soo koobaynaa